federaalka ee Soomaaliya ayaa ku geeriyooday maanta weerar ay kooxo hubeysan ku soo qaadeen xilli uu watay gaarigiisa kuna soo jeeday xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay xildhibaanka isaga iyo askarigii ilaalada u ahaa waxaana aaskaasi ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya wasiiro xildhibaano taliyaha booliska iyo sidoo kale eelada xildhibaan xeyd iyadoo aaska uu ka dhacay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho aaska kadib ayaa waxaa geerida xildhibaan xeyd iyo askarigii ilaaladiisa ah ka tacsiideeyay dhammaan qaybihii ka soo qayb galay aaskaasi oo ay isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano iyo dad kale waxaana Allah ay uga baryeen xildhibaan xeyd iyo askarigii ilaaladiisa ahaa inuu jannadii firdawsa Allah ka waraabiyo maadaama maalin kamid ah maalmaha barakeysan ee bisha Ramadaan uu geeriyooday saaxiibul hubb alwatan wal iimaan inuu ahaa xaarisul wadan fi nafsi wa fi ahli wa bi ahbabi aan raad ka nahay waxaan leenahay qaranku ka dhintay qoyska nagama dhimanin waxaan leenahay qabriga Allah ha nuuro amalkaas baan inoo wada dambeyn doona kulligeen godkaas ina wada sugaya maalin maalmaha kamid ah inuu wada gelinayaa nin kasta oo garaada aad leedahay iyo madarajo aad leedahay iyo maal aad leedahay aan Allah uga baqno waxaan rabaa in aan u tacsiiyo awalan eheladii familkii oo maartay mataqaana محمد وكمد يحيى يعدي كلا أو أهل إن إلهي سمر وكسيو وحاكلو تحسينا يا قالها الشعب كبرلمانك أو رنتي وشرف كل حلها مركور وكتحسينا وحنا كده انتقالن كصوماليد وحنا وتحسينا حلبان ذا قالها وزير ذا يومد الصوماليد يقيسكي وكده انتبه وحنا بوليسهان أن بلنا قاعدين هدي إلهي راد أنت دون تهاجته إن قاعن كل إجلياشاس أن حريست لهين ومالن صونا u bareeray inay dhiiga islaamka caadaystaan inay ku layaan si xaq darro ah inaan gacanta ku soo dhigno shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ciidamada amniga gacan ku siiyaan sidii loo heli lahaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Jeelani Nuur Eekar ayaa isagana tacsi u diray eelada xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in xildhibaan Maxamed Maxamuud Xeyd uu ahaa geesi dalkiisa iyo dadkiisa muddo dheer u soo shaqeeyay waxa uuna ugu duceeyay in Alla jannadiisa uu siiyo anoo ku hadlaya magaca gudoonka baarlamaanka magaca xildhibaanada waxaan tacsi u direynaa qoyskii oo ka geeriyooday eheladii qaraabadii iyo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gacanka xaq daran baa dishay maalin Ramadaan asoo sooman taasi shaki igama jiro inuu midqaana bila su'aal jannadiisa gali doono insha Allah anagana inuu jidkaas Ilaahayna marsiin doono waxaan aad ugu xunnahay in maanta ay xildhibaankii lixaad laga dilayo inaan u sheegan rabo xildhibaanada iyo ummadda Soomaaliyeed taasi ma hakin doonto hawshan iyo waajibaadka aan maanta naga saaran wadankan badbaado u baahan yahay cadow oo aan naxariis lahayn oo maalin Ramadaan ay tahay oo waxaan sameynaa ayaan hor joogo waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay ka soo horjeestaan xeyd oo ahaa nin sharci yaqaan ah nin waqtigiisa dhoora saacad ku yimaada baarlamaanka shaqadiisa ay qaan sharciga aad ugu adag waxaan rajaynayaa Ilaahay واسكو كبحين ميت كميد إلهي نوسو قليل وحان إلهي كبرينا جنة الفردوسة إلهي نومتخنا أنا قلي بعدش إلهي نفيدنا اللهم عدنا الخيرات اللهم عدنا الخيرات والفتوحات والبشارات والفوز والفرح وصلى اللهم على سيدنا محمد الفاتح أسكري للسعودية أو إسبطورة هابوليس أصلا إلهي نحرزنا كورابية أسيانا وحوي وسياسو كلا ننجيسوها سيدا أن الله وصل شيء أسأل الدفاع أسأل له لوقت تسكوين جيسن لا أسأل إلى نحسن لك ورابيو ugu dambeyntii xildhibaan coonka oo kamid ahaa dadkii maanta la socday gaariga xildhibaan Xeyd marka weerarka lagu soo qaadayay ayaa waxa warbaahinta qaranka u sharaxay dhacdada sida ay u dhacday iyo qaabkii xildhibaanka uu ku geeriyooday taa markaan iraahdo saaki markaan hoteelka ka soo baxnay gaari markaan soo maraynay Naasahablood 2 dhabarkiisa dambe oo anaga dhabarkeena uu ku aadan yahay bangiga iyo jaamacadii hore ee ummadda wajigeena uu saaran yahay dhanka hooyooyinka ayaa gaari oo Ronald yiraahdo cagaar mugdi xigeen ah waxaan u qaadanay inuu la gudbaayo laakiin nama gudbin
markuu gaarigayna la siman yahay oo mitir dhaafay ayuu gaariga ku soo gooyay muraayadaha ayaa mataqaana u xirnaa muraayadaha ayay dajiyeen xabadihii ayay fureen marka xabadaha anagana askarigayna asigana wuu furay asigana mataqaana xabadii marka xabadii lees weydaarsaday saas ayaa dhacday oo xildhibaan xeydna ku dhintay askarigii oo anagana nala socdeen ayuu ku dhintay xildhibaan admiral maxamed maxamuud xeyd ayaa waxa uu noqonayaa xildhibaankii lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ka dhinta waxayna kooxaha dhagarqabayaasha ka dambeeyeen dilka dhowr xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan iyadoo taasi ay muujinayso sida nafurnimada leh ee golaheena shacabka ay diyaarka ugu yihiin in ummadooda ay u adeegaan iyadoo kooxaha dhagarqabayaasha ay argagixisada ahna isku dayayaan in ay curyaamiyaan hawsha xoog badan